Nuur Ibrahim Ali waxaan jiraa 29 sano waxaan ka imaaday Qoryooley Shabeellada Hoose waxaan noqday xubin ka tirsan Al-Shabaab markii militariga Itoobiya ay soo galeen gudaha Soomaaliya sanadkii 2005 aad ayaan u yaraa waxaan la dagaalamay dagaal ogayaashii xilligaasi waxaan qaatay qoriga anigoo aad u yar anigoo fikradaasi xaq jirnimada aaminsan fikradii aan ka haystay Al-Shabaab ayaan bedelay markii aan arkay inay qarxinayaan dadka rayidka ah ayaan waxba galabsan iyo waxyaabo kale oo aan habooneen ma sahlanayn inaan ka goosto laakiin fikradda goosashada waxaa jira boqolaal jecel inay soo goostaan sidaan aaminsanahay dad ayaa isku dayay inay baxsadaan mar hore laakiin waa la qabtay dib dambana looma sii arag kadib markii lagu wareejiyay kuutada Al-Kataib ama waaxda sirdoonka nasiib wanaag anigu waan soo baxsaday maadaama odaygeena oo i baray xubin ka tirsan bulshada magaalada aan joognay run ahaantii ma jiro ruux soo goostay oo toos u abaaray xeryaha dhaqan celinta ee dalka aniga shakhsiyan marka hore Qoryooley ayaan imid ma awoodin inaan helo ruux i caawiya sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday inaan wadada Muqdisho soo aado aniga oo sida shaqaale iska dhigaya halkii aan si toos u abaari lahaa kontaroolada Al-Shabaab markii aan caasimad soo gaaray waxaan muddo 2 maalmood jiifay guriga habaryartay kadib waxaan isku dhiibay ciidamada qaranka SNA-da oo xubno kale oo laga tirtiray xaq jirnimada isku soo dhiibeen waxaan jeclahay inaan yeesho mustaqbal ifaya markii aan Al-Shabaab ku biirayay dugsiga sare ayaan dhiganayay dib uma heli karo waqtigii iga lumay waxaan u maleynayaa inaan aad uga duwanahay dadka kale ee xeryaha dhaqan celinta ee dalka jooga maxaa yeelay waxaan mas'uul ka ahaa tuulo la yiraahdo Jasiira marnaba ma filaynin in xeryaha dhaqan celinta ee dalka noqon doonaan meel wanaagsan siday noo tahay hadda halkan waa meel wanaagsan xanaanada caafimaadkeeda uu wanaagsan yahay waxaan ka bogsaday caabuqyo badan waan ku faraxsanahay halkan iyadoo loo marayo ololo iyo wacyigelin loona marsiinayo idaacadaha waa halka ugu wanaagsan sababtoo ah ma haystaan TV-ga ay daawadaan waxa kaloo jeclaan lahaa inaan u diro fariin dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed taasi oo ah waa inaan sameynaa isbeddel wanaagsan waxa dhibaatada ku jirnay 30 sano ee la soo dhaafay kuwa kale ee ka baqaya Al-Shabaab inay ka goostaan ka taga hana ka baqina caqabadaha xitaa haddii la macno tahay inaad u dhimanaysaan xornimadiina fadlan ka faa'iideyso xarumaha dhaqan celinta dalka adigoo lagu bari doono xirfado aad ku shaqaysato haddii aad doonaysid inaad iskaga soo baxdo Al-Shabaab fadlan la soo xiriir lambarkan eber 6 9 23 41 eber 8